waa kan gaarigayga noocaana loo galay xabadda ilaa iyo muraayadaas ilaa iyo gaariga aad arkaysaan meel uu ka fayow yahay ma taqaanaa ma jirto waad dareemi kartaan gaarigan anigaa watay anigaa darawal ka ahay shirkan jaraa'id uu goordhow warbaahinta u qabtay ciise sharaawe cabdi gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay isku day dil oo maanta la damacsanaa in lagu kharijiyo nafsadiisa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir ciise sharaawe cabdi waxa uu sheegay xilliga falka uu ku dhacayay inuu dhex marayay bartamaha degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ragga soo weeraray iyo nooc ay ahaayeen isagoo sheegay khasaarihii ka dhashay weerarkaas ee dableydii weerarka ku soo qaaday ee soo gaaray in hadda u yaala dhaawacooda cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho halka rag kale oo uu sheegay inay nolosha ku qabteenna ay ku xiran yihiin saldhigga wadajir ee magaalada muqdisho hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ayuu ugu baaqay sida ugu dhaqsiyaha badan inay uga howlgalaan islamarkaana raggan uu weji garanaya qaarkoodna sida uu sheegay uu ku arki jiray gudaha degmada wadajir ee magaalada muqdisho la weydiiyo sababta ay ku keeneen inay weeraraan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaan ay gudoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ee arrimaha siyaasadda magacaygu waa ciise sharaawe cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda degmada wadajir fal la yaab lahaa maanta igu dhacay degmada wadajir anigoo ku jiro wakhtigayga shaqada oo u sii socda degmada ayaa degmada horteeda meesha degmada iyo laamiga intii u dhaxaysa ayaa kooxa burcada oo gaari saarufo wata waxay igu hor jareen gaarigii markay igu hor jareen xabad bay igu bilaabeen halkaas waxaa ka dhacay dhimasho iyo dhaawac qolada dagaalka maaragtay igu soo qaaday waxay ahaayeen qolo la yaqaan oo ka mid ah dadkii maamulka annaga isku shaqada aan ahayn dadan aqaan oo wejiyadooda aan garanayo oo maamulkii dhexdiisa mataqaanaa aan isku arki jirnay oo maamulkii qaybo ka mida mataqaanaa la shaqaynayey ilaa iyo hadda waan yaabanahay mana garanayo sababta ay ku dhacday nin adiga aadan iska ilaalinayn oo cadowgaaga aadan ka dhiganayn inuu adiga ku soo weeraro ilaa iyo haddeerna ma garanayo ujeeddada lay soo weeraray oo la doonayay in dhiiggayga lagu bannaysto lagu qaarijiyo waxaan ogaaday qaybo ka mid a ayaa lagu soo qabtay nolosha lagu soo qabtay qaybna dhaawac baa lagu soo qabtay oo weliba ay naga fakadeen oo gadaalan ka soo qabannay dhaawacooda iyo noloshoodaba aan soo qabannay ilaahay baa maaragtay qofku markuu daacad yahay waddo uu ifinayo ilaahay baa maaragtay noo ifiyey waana soo qabannay dhaawacoodayna isbitaal madiina ayuu yaallaa qaybihii nolosha lagu soo qabtayna saldhigga wadajir ayay ku xihan yihiin waxaan codsanayaa laamaha amniga inay hawshaas ay maaragtay ka howlgalaan weliba si degdega si inta raadkooda uu sii cad yahay ma moodayn maanta ka soko inaan leynahay laba cadow laakiin maanta waxay ii caddaatay cadowgii inuu ka dhex bilowday dowladdii dhexdeeda oo dadkii annaga aan maaragtay isweheshanaynay oon isku xaquuqda ahayn oon isku shaqada aan ahayn oon hal doon isla saarayn in ay cadow nagu yihiin ee isbaaro maaragtay dowladdii ka soka isbaara u taallo inaan la rabin in la wada shaqeeyo dad maaragtay belaysan oo amnigii maaragtay iyo argagixiso ummaddii ku abuuraya inay ummaddii u dhexeeyaan ay dowladnimadii ay ka soo horjeedaan oo isbaara ay u taal taasna waxaa caddaynaysa nin kula shaqaynaya oo dhinacaaga taagan inuu dhibaato kugu yahay oo adigii uu kugu soo jeedo cadowgaas waxaan moodayay in hal cadow aan leynahay halkaas cadow oo ah argagixisada al-shabaab laakiin maanta waxay ii caddaatay dowladdii dhexdeeda inay cadow leedahay waxaan ka codsanayaa laamaha ammaanka hawshaas si degdega inay baaritaan ay ku sameeyaan dadkii falkaas geestayna sharciga la hor keeno waajibkooda la marsiiyo laamaha ammaanka mar kale iyo mar saddexaad waan ku soo celinayaa waxaan leeyahay hawshaas ha laga daba tago haddaan laga daba tegin hawshaas oo cadowga annaga hoosteenna fadhiya oon iska ilaalinayno al-shabaab ayagaa ka daran ayagaa argagixiso ah ninka kursiga kugu dheggan fadhiya ku soo hubaynaya ku soo dilaya kuu soo diraya dadkii mataqaanaa la shaqaynayey dad adiga iska ilaalinayno maaragtay hubka markaad wadato intaad soo dhigto asaga aad maaragtay maciin bidayso asagana ku dilayo hawshaas waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka ah laamaha ammaanka hay-adaha amniga inay ka shaqo galaan si degdegana jawaab uga baxshaan inkastoo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir uu sheegay rag uu weji garanayo in weerarkan ay ku soo qaadeen haddana lama garanayo cidda ka dambaysa weerarkan in lagu soo qaado balse ragga weerar ayuu sheegay inuu ku arki jiray gudaha degmada wadajir ee magaalada muqdisho